Dunidu maanta waxay ku xiran tahay silsilad adag oo dhaqaale, amni iyo siyaasadeed, taasi oo ka dhigaysa in colaadda ka dhacda hal gobol ay saameyn ku yeelato dalal aad u fog. Haddii uu dagaal toos ah ka dhex qarxo Iiraan iyo Mareykanka, ma noqonayo mid ku ekaada Bariga Dhexe oo kaliya, balse waxa uu saameyn ku yeelan doonaa weliba saameyn u ballaaran oo gaarta ilaa Afrika, gaar ahaan Soomaaliya oo ah dal duruufo gaar ah ku jira. Macaluul iyo kaarta xumo siyaasadeed iyo duruufo aad u adag soo jiitamayay muddo ka badan 50 sano. Mowduucan waxaan si qoto dheer ugu eegi doonaa saameynta uu dagaal kasta oo ka dhex qarxi kara Bariga Dhexe, khaasatan Mareykanka iyo Iiraan ku yeelan karo nolosha, dhaqaalaha, amniga iyo dadka Soomaaliyeed. Qodobka ugu horreeya waxa weeye saameynta dhaqaale iyo sicir bararka. Soomaaliya waa dal ku tiirsan badeecooyin dibadda laga keeno, gaar ahaan shidaalka, cuntada iyo qalabka warshadaha. Haddii dagaal toos ah ka dhex qarxo Iiraan iyo Mareykanka, qiimaha shidaalka caalamka ayaa si weyn u kici kara. Kharashka gaadiidka, korontada iyo ganacsiga ayaa kordhi doona. Sicir barar khatar ayaa dhici kara oo suuqyada gudaha ruuxa. Tani waxay si gaar ah u saameyn doontaa dadka jeebka yar ama danyarta ah ee dakhliga yar ku nool ee qaadama dhargaha ah, maadaama ay adkaan doonto helitaanka cunto jaban iyo adeegyo aasaasi ah. Waxa ku adkaan doonta dadka danyarta ah inay noolaadaan. Saameynta labaad waa saameynta ganacsiga iyo soo dejinta badeecooyinka. Marinka ganacsiga ee caalamka, marinada ugu waaweyn mid ka mid ah wuxuu ku yaalaa Iiraan, sida marinka biyoodka la yiraahdo Hormuz, oo door weyn ku leh isku socodka shidaalka iyo badeecooyinka caalamka. Haddii marinadaasi ay xirmaan ama marinkaasi xidhmo, waxaa halis noqonaya maraakiibta ganacsiga ayaa dib u dhac la kulmi kara. Kharashka soo dejinta badeecooyinka ayaa la bilaabmaya. Alaabooyin muhiim ah sida daawooyinka iyo cuntada ayaa yaraanaya ama qaali noqonaya. Soomaaliya oo aan lahayn wax soo saar gudaha ah oo xooggan waxay si toos ah u dareemi doontaa cawaaqib xumo kasta oo ka dhalata in marinka la xidho. Qodobka saddexaad waxay saameyn ku yeelan doontaa amniga iyo xasilloonida dalka. Dagaalada caalamiga ah badanaa waxay fursad u noqdaan kooxaha hubeysan iyo kuwa xag jirka ah. Haddii Iiraan iyo Mareykanku dagaal galaan, hub iyo qalab sharci darro ah ayaa si fudud ugu faafi kara gobolka oo dhan oo ilaa Afrika gaadhi doona. Kooxo argagixiso ah ayaa ka faa'iideysan kara jahawareerka caalamka. Dadaallada nabad dhiska Soomaaliya ayaa hoos u dhici kara, oo kharashaadkii Mareykanka iyo NATO ku bixin jireen ilaalinta dowladda daciifka ah ee Soomaaliya dabadhilifka ah wuxuu u leexan doonaa in lagula dagaallamo Iiraan. Arrintan waxay khatar ku tahay horumarka amni ee ay Soomaaliya si tartiib ah u gaadhaysay sanadihii u dambeeyay ee amni ku sheega ah. Qodobka afraad ama saameynta afraad ee yeelan doonta bulshada iyo nolosha ay saameyn ku yeelan doonta. Marka qiimaha nolosha kaco, saameyntu ma aha dhaqaale oo kaliya ee waxa hoos galaya shaqo la'aanta ayaa kordhaysa. Barakac iyo saboolnimada ayaa sii badanaysa. Caafimaadka iyo waxbarashada ayaa saameyn aad ah ku yeelan doonta. Dadka Soomaaliyeed oo hore ula daalaa-dhacayay caqabado waaweyn oo ay ka dhaxleen dowladihii ka dambeeyay kacaanka ee dabadhilifka ahaa ayaa wajihi doona culays dheeraad ah. Qodobka shanaad ee ugu dambeeya saameyn siyaasadeed ayay ku yeelan doonta. Inkasta oo Soomaaliya ay si toos ah uga mid noqon karin colaadda, haddana go'aanada caalamiga ah iyo gargaarada ayaa isbedeli doona. Xiriirka dalalka waaweyn iyo kan gobolka ayaa saameyn ay ku dhici karta. Mudnaanta dunida laga siinayo dhibaatooyinka Soomaaliya ayaa hoos u dhici karta. Tani waxay adkeyn doontaa helitaanka taageero caalami ah oo ay heli jirtay dowlad kasta oo soo marta Soomaaliya. Ugu dambeyntii, dagaal ka dhex qarxa Iiraan iyo Mareykanku wuxuu noqon doonaa masiibo caalami ah oo saameyn gaar ah ku yeelata dalalka nugul sida Soomaaliya. Kororka qiimaha nolosha, carqaladeynta ganacsiga, amni darrada iyo culayska bulshada ayaa wada gaari doona bulshada Soomaaliyeed. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la fahmo xiriirka ka dhexeeya colaadaha caalamiga iyo nolosha maalinlaha ah ee dadka, si loo qaado tallaabooyin ka hortag iyo wacyigelin. Fiidiyogaas iyo muuqaalkaasina waxa uu ahaa mowduuceenu ku eegaynay iyo muuqaalkeenu ku falanqeynaynay saameynta uu ku yeelan karo dagaalka ka dhex qarxa Mareykan iyo Iiraan Soomaaliya. Intaan muuqaalkan la mid ah ku kulmi doono, nabaday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.